ChatGPT lacag samee. waxaa laga yaabaa ChatGPT lacag samee marka aad maqasho inaad isweydiiso sidee ChatGPT lacag looga sameeyaa ama see suurtagal ku tahay. run ahaantii wax la marayaa 2023 wax badan ayaa isbedelay sidii ay u shaqayn jirtay. waliba artificial intelligence-ga ayaa wuxuu noqday mid dardar leh oo waxyaabo badan oo aan horay loogu samayn jirin loogu samayn karo. sidoo kale wuxuu fududeeyay shaqooyin badan oo awal cuslaa. haddii marka ChatGPT wuxuu yahay aadan aqoon ama aad ku cusub tahay markii ugu horreysay ama maqasho ay tahay, isla muuqaalkan dhexdiisa ayaan ku baran doontaa kugu fahansiin doonaa isaga laftigiisana aan ku dul tegi doonaa. sidoo kale qaabka haddii aad maqasho ChatGPT uusan kugu cusbayn in aan qaab aadan yani markii hore laga yaabo inaadan maskaxda ku hayn aadan macluumaad ka hayn ayaan rabnaa inaan mataqaana uga faa'iidaysano annagoo isticmaalayna qaab smart ah si aan uga samayno online business ama aan lacag uga samayno. haddaba aan tagno ChatGPT horta. ChatGPT waxa weeye waa program sidaan u egyahay. ChatGPT waa artificial intelligence waxa la yiraahdaa ama caqliga macmalka ah oo machine ama computer waxa weeye u diyaarsan caqli artificial ah leh oo la sheekaysan karo kaaga jawaabiyo waxa weydiisid. af Soomaaliya luqad kasta lagula hadli karaa inkastoo macluumaadka saxda ah uu kugu siin karo marka aad af Ingiriisi wax ku weydiiso. tusaale ahaan hadda af Soomaali haddaad ku weydiiso sidee u horumariyaa noloshayda, saas kale markaa weydiiso waxa uu bilaabayaa inuu kaaga jawaabo jawaabtii qoro isagoo af Soomaali ku qoray. waxaan aaminsanahay in qofku uu horumar samayn karo noloshiisa adoo eegsan. marka yani mawduucu kuma saabsana waxaan, laakiin waxaan ugu talagalay horta ChatGPT wuxuu yahay si ay u fahanto waa mawduuc weyn oo u baahan muuqaal la gaar in laga sameeyo. laakiin annaga hadda waxaan muuqaalkan rabnaa inaan ku aragno ChatGPT inaan ku samayno aan uga faa'iidaysano lacag inaan ka samayno ama aan mataqaanaa ku shaqayno annagoo isticmaalayna inuu article loo qoro oo blogin aan ku samayno. ChatGPT horta Soomaaliya markay joogtid lama ogola oo kuma shaqaynayo ma samaysan kartid. marka waxa u baahanaysaa inaad isticmaasho VPN. marka aad ku samaysato si caadi kugu shaqaynaya. marka qof waxaad ku dirsanaysaa numberkiisa jooga wadamada loo ogol yahay wadamada ama mataqaanaa aan Soomaaliya oo kala ahayn wadamo waxa jira aan loo ogolayn Soomaaliya ka mid tahay. markii lagu soo furfaagarayo qofka koodka wuu ku soo dirayaa kadibna saas aad u isticmaalaysaa sida hadda anigu aan u isticmaalayo. waxa weeye aniga Soomaaliya jooga waan isticmaalayaa saas oo kale marka u isticmaalaysaa. marka aan muuqaalkan hore galno waxaan sameeynaa marka inaan ku samayno ChatGPT waxaan weydiinaynaa in aan maqaal loo qoro. marka waxaa horta soo dooranaysaa waxa yani aad ka hadasho mawduuca. mawduucyo waxaa jira marka waxa la yiraahdo niche baa jira. niche baa soo dooranaysaa. niche-ka markaa soo dooratid waxyaabo waxaa jira article oo la soo geliyo blog-kaaga ama website-kaaga aad uga samayn karto article ka qori karto. marka article-kii isaga noo qoraya noo waxba qori mayno xitaa article-ka mawduuciisii wuxuu ku saabsanahay oo dhan isaga noo samaynaya. marka kadibna website-kana ku soo daawacayna kadibna sidaas ama taqaanaa blogging-kii ugu samaysanayna. tusaale ahaan waxaad weydiinaysaa waxaad leedahay tusaale ahaan waxaad ku qoraysaa give me 5 blog article ideas about body weight loss.
sidaas wuu ku soo taxaya markaad weydiiso hadda waxaan weydiiyey marka 5 fikradood oo aan ka qori karo maqaal oo body weight loss ku saabsan ii sheeg baan ku yiri intaan u soo qoray marka blogayga waxaan rabaa marka inaan mid ka qaato tusaale ahaan oo kale hal maqaal baan rabaa marka inaan qoro oo mid baan ka dooranaa marka waxaan u dhan noo soo qoray marka ku saabsan body weight loss tanaa oo kale hadda marka maqaal ka qorana 10 proven strategies for sustainable body weight loss marka waxaan oranayaa write an article number 1. Write an article in number 1. وكلاس كورن كذا كاكو وضع يعني ليس كذا سمي سي مثل كود article يقرب بعمرنا يا مارك. أوكي وحنا نقرأ مقال كمان الدياري وطنا مقال كمان مستر بنقرأ وطبعا كقرب أو فحصا وشو ده بقرأ. marka maxaan weydiinay marka hore waxaan niri noo sheeg 5 maqaal oo aan ka qoro mowduuc body weight loss oo noo qoro kadib ka koowaad nooga qoro baan niri maqaal oo nooga qoro marka waxa loo baahan yahay inaan marka aan blogin soo gashay marka hadaa sidiisa ku soo gelisid marka blogkaaga ama website-kaaga Google hadhow hadii aad rabtid inaad AdSense-ga ama Google aan lacag uga samaysid oo kale kama samayn kartid waliba hadda waxaan rabaa inaan markaan kugu sheego Google kaliya lacag loogama sameeyo blog marka samaysid affiliate marketing wax leeyahay lagu sameeyaa oo linkiyo waxa la soo qaataa alaab aad xayisiinayso la xiriirta maqaalkaaga su'aalaha kale body weight loss baxda ka hadlaynaa body weight loss intaasoo product waxa jira oo aad ka soo qaadan kadib Clickbank ama Digistore24 ama meelaha mataqaana lagu suuqyada iyo lagu gado alaabaha noocaas oo kale oo affiliate marketing lagu sameyn karo baad link ka soo qaadanaysaa kadib waxaad ku dhex daraysaa marka maqaalkaaga marka ku dhex dir marka saas lacag u sameyn kara marka aan soo noqono mowduuca waxa weeye arrimahaas faahfaahsan mar baan ka hadli doonaa laakiin hadda hore ugu socono maqaalkan marka kuu soo baxa mar usaan uu kugu qoro si toos ah uma qaadan kartid isagii oo dhan sababta hadhow Google waxa rabnaa inaan Google AdSense lacag uga sameyno bloggeena marka waxaan u baahanahay Google way dareemaysaa in waxaan article-kan uu qoray mataqaana ChatGPT oo kale ama AI inuu yahay AI detector baa jira marka way dareemayaan marka waxa sameeynaa marka waxa tagaysaa AI detector website kale tagayna oo leeyahay marka GPT-2 output waa kaawaya output detector كاسنتين كامر كاتكتيد مقالك مرك نوصل بحي ما سوق علينا اوكي مقالك ما سوق علينا بحسيو كل سام مقالكان كوبيست كريه اوكي halkaan marka uu soo saaraya 99.9 waa fake 0.02 kaliya realka ah yani waa fake marka la leeyahay waxa laga wadayaa waa ama waa AI ama waa yani maaha original maaha shaqada waxaan article-kan marka hadhow Google waa ku qabsanaysaa hadii aad rabtid inaad AdSense ku samaysid oo kale markaas kale marka si toos uga isticmaali kadib marka waa inaan xal u keenaa marka si aan xal u keeno waxaan soo furaynaa website kale inteynaa marka ليرهذا spinbot website kaas tagaysaa spinbot saad ku qoraysaa inta wax ku dhufanaysaa saas u eegaya marka website ka u nimaan marka waxaan tagnaa article-kii waan wadanaa oo inuu ku beesnaa sagaan ku paste kareynaa marka website kan marka waxaan rabaa inaan ku sameeyo paraphrasing oo qoraalkiisaan dib u qoraya waa kala horumarinaya isaga marka inuu kala horumarinaya rewrite baa uu ku sameynaya article-kii oo dhan marka wuxuu ka dhigayaa mid cusub oo si kala ah
ama waxaad tagaysaa website ka leeyahay Quillbot kadibna waxaad ku dhufanaysaa ka qorayaa ku dhufanaysaa halkaan ku keenaya marka waxaan ku baskaraynaa marka maqaalka aan wadanay maqaalka marka aan ugu baskarayo okay marka waxa sameynaysaa paraphrase baa oranaysaa xagaan marka ka soo saaraya isagoo maqaalkii oo inoo qoran oo si kala u sudeemariyay waxaan ka soo saaraya marka waa kan hadda intaan ka qaadanaa kaliya isagoo dhan isu nooga dhameyn si aan waqtiga u yarayno intaan soo qaadanaya marka awal saan u qonnaa 10 proven strategies for sustainable bad weight loss waa hadana waa 10 tested techniques for long term bad weight loss marka saas u soo koobaya oo u kala bedelaya erayada buu kala bedelaya si soo qaada marka waxa ku soo noqotaa meeshii aan ku hubinay inuu AI detector-ki meeshii aan mataqaanaa aan isticmaalnay in original tahay shaqadan iyo in mataqaanaa ay tahay shaqa meelaha ku soo sameynay meeshii aan ku hubinay waa tan waa GPT-2 output detector marka isaga soo galeynaa marka soo galna meeshana fake awal waxa weeye halkaan aad ku yaray oo 0.02 ga ahayd 98 bay noqotay 0.7 halkaan waxay noqotay 1.29 fake inta kaliya hadda ku jirta marka haddii realku mar hadduu 80 ka sareeyo 90 waliba hadduu ka sareeyo waa caadi okay way article-kan marka cidna kuma qabsanaysa dhow maadaama uu yahay real yahay oo adiga mataqaanaa original uu noqonayo cid kale hore u samaysay aysan jirin laakiin haddii aan tabtiisa ku isticmaali lahayn kii aan soo bedelin oo aan rephrasing aan ku samayn paraphrasing aan ku samayn hadda uma isticmaali karno blog ahaan uma isticmaali karno ma soo gelin karno bloggeena marka saas loo sameeyaa kadib markaas ay soo baad soo gashanaysaa blogaaga blog marka waa wax fudud haddii aadan mataqaanaa aadan fahansanayn muuqaalaha ka samayn doona laakiin blogger oo kala ku samayn kartaa wordpress oo kala ku samaysan kartaa waxaa samaynaysaa marka muuqaalka marka qoraalka saas kale maqaalka u soo samaysatid oo soo diyaarsatid waxaa raadinaysaa marka product la xiriira maqaalkaaga oo waxaa ka raadinaysaa website-yada sida Clickbank oo kale website-ka Clickbank oo kale ka raadinaysaa oo ka helaysid alaab la xiriira alaabtaada maqaalkaaga la xiriira oo aad ka soo qaadin kartid alaabtaas marka ku xayeysiinaysaa oo ku dhex daraysaa si marka la iibsado aad lacag uga samaysid sidoo kale waxaad tagi kartaa Digistore24 Digistore24 isna waa website saas kala affiliate network ah oo marketplace weeye saas kale waxaad ka helaysaa alaab la xiriirta alaabtii maqaalka aad qorayso wax la xiriira weeye saas marka maqaalka ugu dhex daraysaa maqaalka dhexdiisa dadka marka ka soo linkigaaga ay soo booqdaan oo ay xagaan alaabta dadku ay iibsadaan adigu commission baad ku yeelan doontaa marka waa affiliate marketing weeye haddana blogging lagu dhex samaynayo marka haddaan soo koobo marka maqaalkii waxaan kusoo samaynay ChatGPT kadib maqaalkii markuu inoo qoray maqaalka horta fikirkii aan ka qori lahayn iyo mawduuca blog idea article idea isaga noo sheegay kadib noo qorba haddana nidin maqaalkii markuu noo qoray kadib waxaan samaynay inaan tagno waxa weeye aan iska hubino detector waxaan ku samaynay AI detector waxaan tagnay website-kan waxaan tagnay GPT-2 output detector baan tagnay kadib waxaan ku qornay maqaalkii kadib wuxuu noo soo saaray inta realka iyo inta fake ah waxaan tagnay marka Quillbot oo asagana aan ku ogaanay maqaalka inoogu sameeyay paraphrasing inoogu sameeyay oo maqaalkii inoo soo dib inoogu qoray isagoo erayada kala horumarinaya kadib baan waxaan ku soo noqnay GPT-2gan si aan haddana u hubino inta noo noqotay realka kadib markay noo noqotay 98.7 real maqaalka marka waa qaadan karnaa bloggeena waa soo gashan karnaa marka kadib waxay raadsanaysaa marka alaab ama producti alaabta maqaalkaaga la xiriira oo affiliate marketing ku samaysid kadib waad ku dhex daraysaa saasana waxay ku soo gashanaysaa blogga ku soo gashanaysaa daba intaasaan ku soo gabagabeynaa maanta muuqaalka
muuqaaladii hore haddii aadan hore u daawan soo daawo waxaa weeye muuqaalka channelka waxaa ku jira muuqaalo badan baa ku jira salaana kale hadda markaa soo gashid playlistigan oo kale markaa u furtid oo kale waxaa ku jira koorsooyin xitaa waxaa ku jira free course playlist dhan ah waxaa jira free courses markaa gashid waxaad ugu tegaysaa marka koorso dhan oo ay ku saabsan online businesska hababka kala duwan online businesska loo sameeyo noocyadooda sidoo kale waxaa ku jira digital marketing course free ah ku jirta marka channelka wax badan baa yani ku jira oo xoogaa macluumaada muuqaalada kalena saas oo kale usoo daawan kartaa intaan muuqaalka ku xigaan isaga kulmayno nabadgelyo ama asante